السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdikhaaliq. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo gudbinayaa dhacdooyin kala duwan oo cajiib ah. Daawasho wacan. Gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Franjil ayaa xanuunsatay. Gabadhan waxa ku dhacay cudur maskaxeed naadir ah. Dhibaataduna waxay ahayd in nidaamka difaaca jirku weeraro unugyada maskaxda ee joogtada. Markaa dhakhaatiirtu waxay u sheegeen in qalliin lagu sameynayo. laakiin qalliinku ma aha mid sahlan. qofkii qalliinkaas mara gebi ahaanba maskaxdiisa oo dhan way wada tirmaysaa. waxaanay dhakhaatiirtu ku yidhaahdeen dib uga soo fakir, familkaagana la soo tasho, kadib nagu soo noqo. gabadhii faamiligeedii ayay u tagtay, waana la tashatay. kadib waxay go'aansadeen in lagu sameeyo qalliinkan. cisbitaalkii ayay timi, waxaanay saxiixday warqadihii qalliinka lagu sameynayay. Franjil qalliinka ayaa lagu sameeyey. maskaxdeedii oo dhanna waxa laga dhigay format. xasuustii oo dhan baa ka baxday. waxba ma garanayso, qofna ma aqoonsan karto, waxba ma qori karto, waxna ma akhrin karto. wax walba hadday u yihiin bilow. 5 sano ayay jaamacad ka soo baxday, laakiin waxba kama taqaano. socodka xitaa ma awoodo inay socoto. run ahaantii waa dhibaato aad u weyn markii aad xasuustaada wada weydo. laakiin mid kale ayaa jirtay. gabadhan wax walba si dhaqso ayay ula qabsanaysay. yacni si dhaqso ah ayay wax walba u baranaysay. booliska dalka Mareykanka ayaa waxa uu soo qabtay gabadh la yiraahdo Mona Lisa Paris oo u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana lagu soo eedeeyay inay dishay saaxiibkeed. gabadhan Mona Lisa iyo saaxiibkeed Pedro waxay lahaayeen YouTube channel, waxaanay soo gelin jireen muuqaallo, vlogs, challenges, reactionno, waxaanay lahaayeen shacbiyad fara badan oo aad ugu xidhan channelkooda. maalin maalmaha ka mid ah saaxiibkeed Pedro wuxuu ku fikiray inuu sameeyo challenge aad u khatar badan oo ka duwan kuwii hore u sameyn jireen. Pedro ayaa gabadhii wuxuu u sheegay inay sameynayaan challenge cusub. baaskoolad iyo buug ayaan soo qaadaynaa, buugga ayaan shafkayga saarayaa, adna baaskoolada ayaad igu soo ridaysaa, ayuu ku yidhi Mona Lisa. Mona Lisa Paris markii hore way ka diiday arrinkaas, laakiin ugu dambeyntii wuu ku qanciyay. intaanay muuqaalka duubin ka hor waxay ku soo qortay barteeda Twitter-ka, maanta aniga iyo Pedro waxaan sameyn doonaa muuqaal aad u khatar badan. waxaana intaas sii raacisay, fikraddu waa xaggiisa maaha dhinacayga. wax yar ka bacdi muuqaalkii ayay sameeyeen, buugga ayuu shafkiisa saaray, iyaduna xabaddii ayay ku soo riday, iyadoo u jirta wax ka yar 30 sentimitir. balse nasiib darro, isla markiiba Pedro halkii ayuu ku dhintay oo uu nafbaxay. intaa kadib waxay si degdeg ah ula hadashay booliska, waxaanay ku tidhi, aniga iyo saaxiibkeen waxaan rabnay inaan duubno muuqaal, laakiin fikraddu sidaan doonaynay may noqon. baaritaanka bacdi maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 bilood oo xadhiga, laakiin 3 bilood oo ka mid ah waxay ku qaadanaysaa xabsi guri iyo sidoo kale 10 sano oo kormeer lagu haynayo. yacni waxaa laga ilaalinayaa inay isticmaasho wax huba. ninkan aad arkaysan sawirkiisa waa ninka nool dalka Mareykanka, gaar ahaan New Mexico, waxaana la yiraahdaa El Batista. habeenada ka mid ah waxa ka dhamaaday sigaar uu cabayay. saacadduna waxay ahayd 3 habeenimo. markaa wuxuu u baxay dibadda si uu u helo dukaan xilligaa furan. midda kale habeenkaa waxa soo galay maalin Axad. maalinkaasna dukaamada Mareykanka oo dhan way xidhan yihiin oo waa fasax. dukaan xaafadda ku yaalay oo xidhan ayuu arkay, waxaanu isku dayay inuu albaabka ku qaraaco, laakiin lagama furin oo cidiba kuma jirin dukaankaas. markaa wuxuu sameeyay albaabkii ayuu jabiyey, waxaanu kala soo baxay baakid sigaara. lacagtina waxa uu ku beegay CC kamarada si loo arko inuu lacagtii bixiyay caddeyn ahaan. 2 maalin ka bacdi booliska ayaa qabtay. maxkamadda ayaa la saaray, waxaana lagu xukumay $800.